وقت دير كبعدي iyo وحسويدين فربضن inaanu isla garanay agaasimaha guud iyo tifaftiraha agaasimaha waaxda TV-ga iyo tifaftiraha guud Abiib inaanu isla garanay in TV-gii qaranka baahintiisu bilaamato 12 duhurnimo oo warka si ay dadka reer Soomaaliland meel kasta ay joogaan ay u helaan war tayo leh oo waqtigiisii loogu talagalay loo helo maadaama TV-ga qaranku uu bishan kowdeeda uu 15 jirsaday uu qaan gaaray sida ay sheegeen akhyaartii TV-ga bilowday oo tifaftiraha guud Abiib ka mid yahay runtii waxaynu rabnaa ummadda reer Soomaaliland meel kasta joogtay inaynu noqono ummad cid waliba waxa ay u xilsaaran tahay shaqadeeda qabato si hufan oo milga iyo karaama leh u fuliso waxa sharaf weyn oo aad iyo aad aan ugu faraxsanahay inaan muddo 4 saacadood hore u soo dhigno baahintii TV-ga qaranka ee warka oo bilaaban doona 12 sidaan hore u sheegay dadweynuhu waxay naga filaan ummadda reer Soomaaliland anigoo magacii wasaaradda ku hadlaya warfaafinta inaanu si tayo leh u soo gaarsiino dad badan oo reer Soomaaliland waxay runtii soo jeediyeen war sababta TV-yadii kale ee private ka ahaa ay warka sida waqtiga u keenaan idinkuna aad u keeni weydeen maxay tahay runtii waa qorshe garna loo kuleeyahay waanu garawsanay hadaan nahay mas'uuliyiintii waxaanuna runtii isla qaadanay annagoo isla ableynay oo isla eegnay oo isla garanay muddadii bishii ugu dambeysay baanu qorshaha ku jiray inay hadii Allah maanta 12 wixii wara ee wadanka ka jira iyo ta guud ahaan caalamka ka jiraba inuu dadka reer Soomaaliland gaaro 12 duhurnimo waxaan aad halkan uga mahadnaqayaa agaasimaha guud agaasimaha TV-ga qaranka oo rogcada runtii intayadani markaanan aniga malaha ugu weyno waragii kulli intaana jaamacadaha ka baxay Soomaalida oo aan jaamacadaha ka bixin dadka Soomaaliya ka hadla sidaan u maleynayo dad dhifacay isku mar jaamacada galeen Faratoon iyo ninkii wasiirka waxbarashada waagi dhaweyd ahaan jiray iyo Ismaana ee jaamacada mar wada galeen marka groupkaas runtii waa ragii soo shaqeeyay ummadda dadka af Soomaaliga ku hadla oo dhan ka soo shaqeeyo codkooda ay wada xusuustaan aniga qodaydu ninka la yiraahdo Abiib Mayara waa runtii waa ragii aanu mar wada bilownay shaqooyinka dawladda intii aan Soomaaliland joogay buu ka shaqeynay sharaf iyo karaama u tahay annagana waa noo tahay TV-ga qaranka idaacadda ayuu runtii inta badan joogay waxaan kaloo ku xusuustaa inuu ahaa ninkii soo bandhigay giraantii Cambaro iyo Horawan inuu soo bandhigay oo markaa waqtiga cajilado magaalada Hargeysa lagu kala qaadin jiray oo dadku aad u xiiseyn jireen waqtiyada ka anigoo magaca wasaaradda ku hadlaya iyo warfaafinta jamhuuriyadda Soomaaliland waxaad naga sugtaanba waa baahinta 12 guul baan idin rajeynay